بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين. halkan maanta ku soo dhawaada xalqada cusub oo aynu kaga sheekayn doono qayb ka mid ah cilmiga sayniska gaar ahaan cilmiga physics-ka iyo astrophysics-ka ama cilmul falak waxa loo yaqaano afka carbeed. waxa aynu focus-ka saari doonaa ama diiradda aynu ku saari doonaa inta aynu ku dhex jirno xalqadahan inaynu fahno muuqaalka guud ee uu leeyahay uunku ama kownku, inaynu fahno oo wax ka baranno dabeecadaha iyo xeerarka ka shaqeeya universe ama kownka ama uunka, inaynu kala saarno aragtiyaha iyo sayniska ama waxa wali aragti maraya iyo saynis. intaas waxaynu saaraynaa diiradda ayaynu si xooga u saari inta aynu ku dhex jirno barashada cilmigan. waxyaabaha aynu doonayno inay dadku ka faa'iideystaan ama ay tarayso ama ujeeddada aynu ka dan leenahay waxa weeye inay dadku ka helaan ama dadka Soomaaliyeed ay ka helaan aqoon guud qaabka uunku u samaysan yahay iyo xeerarkiisa, inaynu fahanno aragtiyaha sayniska saxnaantooda iyo qaldanaantooda, inaynu ka faa'iideysano ama inuu ka faa'iideysto qofka raba inuu duro ama naqdiyo ama aragti saynis ka hadlo si uu muuqaalkeeda fahmo kadib dabeedna markaas oo wixii uu ka sheego. balse mararka badan waxa dhacda inay dadku qaarkood ka hadlaan aragtiyo saynis oo aanay fahansanayn qaabka ay tahayba oo sharax ka duwan sharaxa aragtiyeed ama sharaxa cilmigu saaray ay saaraan. qodobka ugu muhiimsan oo aynu ujeedadeenu ay tahay waxa weeye inay cibra qaadasho ay noqoto oo qof kasta uu ka faa'iideysto mucjisooyinka kownka ku jira ama uunka ku jira. wax kasta oo uunka dhaca iyo qaacido kasta iyo xeer kasta oo la ogaada wuxuu daliil u yahay jiritaanka Ilaahay. waa sida ninkii shaacirka uu lahaa, shaacirkii carbeed ee Labiid bin Rabiica uu lahaa, فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له علامة تدل على أنه واحد. إلهنا قرآن كيسا إن بدن أيو كتل مامي إننو إيغيغنو كونكا أو فير سنو إن اسم بدلك كدع يا كونكا أو يهي ددك عبرة أو صاحبك ما عبرة قادة شدا أما ددك عقلي أدلي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يا آيات بدن وكله. حلقة كوباد waxaynu ciwaan uga dhignay the beginning of the universe and the big bang. bilowga uunka iyo waxa ay u yaqaanaan saynisku qaraxii weynaa ama big bang al-infijaar al-cadiim. waxa aynu diiradda ku dhex saari doonaa ama uu ka koobnaan doontaa xalqada koobaad qaabka uu universe-ku yahay, structure of the universe, uunku qaabka uu structure-kiisu samaysan yahay, how this beginning and the big bang. sidee ayuu ku bilaabay big bang-ku ama infijaar al-cadiim waxay waxyaabaha guud aynu aragti ka bixinayna waxa weeye muuqaalka dadka uu ka fahansan yahay uunka. waxaynu u naqaanaa uunku inuu yahay dhulka kaliya oo aynaan fahansanaynba inuu yahay wax aad u ballaaran oo xataa ballaadhnaantiisa inta uu kala fog yahay marka la qiyaaso ee la isticmaalo qalabyada ugu casriyaysan ee teleskoobyada lagu eego planetiska fogfog iyo xidigaha fogfog, meerayaasha fogfog iyo xidigaha fogfog lagu eego ayaa waxa lagu qiyaasaa in uu isu jiro dhaxroorkiisu waa qiyaasta inta laga og yahay 9 bilyan oo light year. waa units, waa laga tagay kilometer iyo meter iyo cabir la isticmaalo oo cabirada aynu naqaanay dhulka dhexdiisa ku isticmaalo waa laga tagay.
waxa la adeegsaday markii cabir kale la qori kari waayay wax loo yaqaanaba loo adeegsadaa marka la joogo universe-ka light year ka waxa laga soo qaatay unitkaas inta uu socdo ilaysku sanadkii ilaysku waxa la sheegaa inuu socdo 300 milyan oo mitir 300 milyan oo mitir halkii sakan ama halkii ilbiriqsi dhulka in badan buu ku laabmaya marka xawaaraha noocaas lagu socdo xawaaraha noocaas markuu sakan jaro ayaa waxa lagu sii dhuftay intuu minutes socon lahaa ilaysku markaas haddana waxa lagu sii dhuftay inta uu socon lahaa saacad markaas lagu sii dhuftay inta uu socon lahaa bil markaas lagu sii dhuftay inta uu sanad socon lahaa markaas laga dhigay hal unit intaas waxa lagu qiyaasaa marka 9 bilyan oo sanadood markuu ilaa socdo marka waa masaafo aad iyo aad weyn waa qaabka uu kala fog yahay uunkaaynu ku noolahay waliba inta waxa xasuus ah in intaas ay tahay samaa dunya kaliya oo waliba samaa dunyihii aan wali la koobin waxa la sheegaa majaraadkaynu ku noolayno ama habarlajiidkaynu aynu ku noolay majaradu ama waxa loo yaqaan galaxiesku waa waxa inagu nidhaahno habarlajiidkaynu aynu ku noolahay habarlajiidka ugu soo dhow ilaa 200 milyan oo galaxies ba ku yaala baleedada ama habarlajiid universe-ka ama uunka kaynu ku noolay waxa la yiraahdaa ay qoraxda iyo planets-kooda ay wadato dhan iyo stars-ka ku dhow ay ku wada jiraan waxa loo yaqaanaa Milky Way galaxy ka ugu soo dhow waxa la yiraahdaa Andromeda wuxuu u jiraa 2.5 million light year yani markuu ilaysku inta socdo waa waxaynan jiri karin oo xataa qarniyada ka hadhnaa inay jiri karin masaafadu intay leegtahay laakiin waxa lagu ogaaday marka telescope-ku light-ka ka hortago ama uu telescope-ka uu soo qabto laydad mar hore in dhaafay ama soo socda way qaabka uu ku bilowmay markii hore lama fahansanayn qaabkan maanta laga fahansan yahay universe waayadii hore waxa la aaminsanaa inuu intan ka kooban yahay in badan waxaana la aaminsanaa inuu dhulku center yahay waxa kadib la ogaaday qarnigii 19aad ayaa xilliyada ugu badan ee daraasaadka ugu badan lagu sameeyay ahayd markii la ogaaday qaabku uu bilowmayo qaabku uu soo bilowmay ama qaabku uu sameeyay structure-ku uu sameeyay yahay universe waxa yara muhiimsan intaan akhriin waxa uu saynis ka aaminsan yahay inaynu horta fahanno kala saarida shareecada iyo waxa ay scientistigu yiri ama saynisyahanadu yiraahdeen ilaahay baa inaga inoo sheegay qaabka uu bilowmay uunku ama koonku bilowmay sidoo sameeysan yana wax ka badan oo kamid ah wana looga sheegay waxaana looga sheegay way jiraan iyaguna marka aragtiyo ayay sheegeen qaarkood saynis gaadhay qaarkoodna wali marxaladda aragti maraya marka ina waxaan isku dayaynaa horta inaynu bal qaabka iyagu afkooda ku hadalno oo qaabka ay u sharaxayaan aynu u sharaxno laakiin ma jisminayno ma odhanayno ilaa saasay u dhaceen si aynu ka saarno awoodda Ilaahay meesha waaye markii la soo dhaafay la fahmay solar system-ku qaabku sameeysan yahay dhulkuna inaanu center ahayn ay qoraxdu center u tahay qaybta inagu aynu ku noolahay kadib waxa la soo ogaaday inuu intan in badan ka weyn yahay bilowgii qarnigii 19aad ayaa aragtiya ugu horeeyay ee universe-ku halku ka soo bilowmay soo shacbixeen nin Ruushiyana oo Alexander Friedman la oran jiray 1922 ayuu wuxuu waxa laga yaabaa in ay ka soo bilowmeen uunku qaab qarax oo kale 1927 George Lemerchant la oran jiray oo Belgian aha saynisyahan Belgian aha ayaa isaguna wuxuu tilmaamay fikradda ah inuu qarax dhacay marka qaraxaasina uu qarax weyn ahaa dibadna universe-ka kala kaxeeyay kadib intii ka dambeysay saynisyahano badan ayaa fikraddii proofing iyo u baadha inay sharaxaad badan ka bixiyaan oo ay ka mid ahaayeen Edwin Hubble nin kale Hubble constant ama qaacidooyinka u badan
waveska ama energy-ga wavesku ay qaadaan ama qaabka ay xidiga iyo u sameeyaan colorka markay soo socdaan iyo marka ay inagu soo socdaan iyo marka ay sii socdaan saddexdan nin waxay aragtiyada ugu badan ee big bang-ka waa saddexda xeerarkooda ama ruleskooda la raaco waxa yara muhiima inaynu sharaxno qaabkee ayuu waxa weeye u bilowmay dunidu ama particle-kii koobaad ama saxarkii koobaad qaabkee loo sameeyay sida ayagu ku sharaxeen waxay yiraahdeen markii hore waxa la joogay universe-gana wuxuu soo bilowmay iyadoo aanu space jirin ama waxa loo yaqaan makaan ama meel aan jirin iyadoo aanu jirin waqti oo time aanu jirin iyadoo aanu jirin walax keliyana waxay doontaan noqotaan wax walaxa jirin saddexda shayba iyagoo aanu jirin ayaa universe-gu bilaabmay bay yiraahdeen qaabka uu bilowmay marka la isweydiiyay qaabka uu bilowmay waxay yiraahdeen markii hore tamar baa lahayd tamar ayaa waxay isu bedeshay marka ay guurtay matter ama particle saxar bay guurtay marka waxa la joogaa infinity of time and space yani meel aan bilow lahayn oo meel la'aan iyo waqti la'aan tamartii marka waxay u guurtay particle sidee ugu guurtaa leeyahay ma la cadeyn karaa inay tamar u guuri karto ay walax isu bedeli karto waa la helay markii hore Albert Einstein isagoo qarnigii 19aad ahaa saynis yahanadooda ayaa qaacido soo saaray tamarta iyo ka dhaxaysa iyo walaxda qaacidadaasi waxay oranaysay sida tan E ayaa la mid ah oo energy ah ayaa la mid ah mass times c square oo la mid ah speed of light oo la isku weegareeyay marka qaacidadaas waxay sheegaysay in la sameeyo in mass laga sameyn karo energy waayadii ka horeysay qarnigii 19aad waxaa jiri jiray xeer caan ah oo maanta dugsiyadeena aad lagu dhigo oo ahaa energy do not destroy and create but you can change it to another form energy-ga lama baabin karo lamana abuuri karo laakiin waxa loo bedelaa qaab kale oo form kale oo ka duwan tamartii hore waxa haduu kinetic energy iyo potential energy oo kale loo bedeli karo potential energy kinetic energy laakiin ma dhici jirin in la fahansanaa in tamar matter loo bedeli karo ama matter oo mass ah laga keeni karo tamar qaacidadaasi dugsiyadeena aad baa lagu dhigaa laakiin in qaacidada laga guuray qarnigii 19aad macallimiin badan hal la socdaan oo aanay sida ay ugu qorantay buugta aanay wahay laakiin waa in la yiraahdaa energy-ga lama baabin karo lamana abuuri karo easily laakiin in laga saaro xatmiga meesha inaanay suurtagal bahayn in tamar la baabiyo ama in tamar la abuuro oo matter laga abuuro waxay sidoo kale ka hor imanaysaa oo ay qalad ku tahay qaacidooyinka aqoonta islaamka ka hor imanayay kamid tahay oo tilmaamaya in university-ga wax yeelaan dhamaanaynba waagi horena waxa jiri jirtay xeer ay sheegaan ahlul kalaamku oo qaacidooyin ay sheegaan oo yiraahdaan waxaas waa azali oo ma laysa lahu nihaaya wala bidaaya hatta cidima soo abuurin oo ahlul kalaamku ay sheegi jireen ama qolooyinka falsafada ay sheegi jireen tiyum ba soo guurtay dabadna xeerkan ay noqotay markii qarniyadii 18aad qarniyadii 15aad la soo gaaray ee tamarta quseeya imankana dugsiyadana aad bacaan ugu tahay marka si aanu qofka yari hatta aqoontiisa aanay saameyn ugu yeelan xeerkuna uu qalad bayahay waa in la baraarujiyaa marka la dhigayo macalinku ka dhax saaraa in tamartu ay mararka qaar kood u bedelmi karto waxa loo yaqaano ama matter-ku tamar isu bedeli karo waana habka laga sameeyo nuclear-ka imanka qaabka nuclear-ka loo sameeyo ayaa qaacidadana nuclear-ka bay aad uga shaqeysaa aanu soo noqdo halkeenii hore ee ahayd in energy laga abuuray matter qaacidadani waxay sheegaysaa in mass oo matter u taagani ay matter kasta waa mass ayay leedahay waa isku xidhan yihiin in energy oo c square loo qaybiyo ay soo bixi karto waxa loo yaqaan matter waxa la isweydiiyay waa garanay horta in mass isaga la bedelo oo energy loo bedelo oo nuclear system-ka lagu arkaa ama nuclear laboratory-ga ayaa lagu arkaa in
maas la lumiyo dabeedna tamar uu isu bedelo balse ma la arkay in energy uu sameeyo matter qarnigii 19aad awaakhirtiisa ama qarnigii 20aad bilowgiisii experimentiyo badan baa la isku dayay laba saynis yahan oo Mareykan ayaa waxay soo saareen in badan ay experimentiyo ku celceliyay ayaa waxay soo saareen some photoniska ama qayb kamid ah photoniska oo photonisku waxa weeye wax loo yaqaano waa saxrada uu ka kooban yahay ilaysku ama waveska ilaysku oo kale ay ka kooban yihiin ayaa waxa loo bedelay electron iyo positron experimentiga waa la sameeyay hadii marka la helay in tamar loo bedeli karo electron iyo positron oo kamid ah nooc electron positive ah ayaa waxa la ogaaday inay suurtagal noqon karto haday doonto inay jirin laakiin suurtagalnimo ay noqon karto inay tamari u guuri karto waxa loo yaqaan matter ama walax ay guuri karto